maanta waxaanu kaga sheekaynaa programkeenan ama aynu ku soo qaadanaynaa waxa weeyaan gabadh sadaqad bixisay wax yaroo haysatay sadaqadaysay habeenkiina ku riyootay wixii Allah subxaanahu wa ta'ala ugu bedelay sadaqadeeda. bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa idin salaamay walaalaha ku xidhan channelkeena Soomaali Cooking & Culture. intay habeen wanaagsan intay maalin wanaagsan goor kasta iyo goob kasta aynu joognana Allah subxaanahu wa ta'ala khayr baynu weydiisanaynaa. soo dhawaada walaalayaal, bariyaha program ma soo gelin, yacni video ma soo duubin waayo xoogaa iska mashquulka aduun, laakiin alxamdulillah nabad iyo khayr baan idinkaga maqnaa. idina nabad iyo khayr baan Allah subxaanahu wa ta'ala idinka rajeynaya, idinka baraya. programkan maanta ama videogan maanta soo duubayna wuu ka duwan yahay kii hore aynu soo duubi jiray. waxa weeyaan arrin aad iyo aad u cajiib leh, aadna ii soo jiidatay run ahaantii. aan jeclaystana inaan idinla soo wadaago. qofka walaasha iiga sheekaysayna aan ka idan dalbaday inaan idiin soo gudbiyo anigoon magaceedana sheegayn, meesha joogtana sheegayn, laakiin aynu wax ku qaadanayno ayaan inoogu soo gudbinayaa. walaalaha ka mida ayaa sheekadan ii soo gudbisay. sheekadan waxay ku saabsantahay waa riyo iyo waa sadaqo iyo riyo. waxaad walaashan waxaan deganaabay tidhi wadamada caalamka ka mida, halku doonu noqon karaa, Afrika ugu noqon karaa, halku doonu noqon karaa. waxaad walaashaasu waxaan iska habaytay qof iska danyaro waxba badan haysanin. aniga iyo freerkayga waxay markaa qoyskayga aniga Ilaahay subxaanahu wa ta'ala i siiyey. waxay tidhi maalin maalmaha ka mid ah ayaan soomay bay tidhi. soon ma lagu lahaa mise waa qalle mise waa isniin iyo khamiis, aduu soonun bay soontay. waxay tidhi soontaa aan soomay ayaa waxaa iyaguna soomanaa bay tidhi 2 qof oo jaarka ii dhowa oo nogaabay tidhi. waad ogtihiinoo dadku markay casarkii wax karsanayaan wadamada qaarkood waxaa laga yaabaa wax yar haddaad halkan ku karsanayso oo yacni ama suuga ha noqoto ama wax kale ha noqoto inay reeraha jaarka u urto. waxay tidhi wax yar baan karsaday, in yaroo hilib iyo waxay tidhi wax yar baan karsaday bay tidhi, oo de markaa waxay tidhi awoodaydu ay goynaysay. intii yarada raashin ahayd markaan karsaday ee waxay tidhi aan bisleeyey een diyaariyey, oo waxay tidhi de wax yaroon reerkaygaba ka badnayna ayaan waxay tidhi waxaan xasuustay 2 qof ee jaarkayga sooman oon iyaguna waxay tidhi markaa afur hagaagsan haysanin, hagaagsan ay ku afuraan. waxay tidhi naftaydii baan la hadlay. waxaa dhabayta Allahi subxaanahu wa ta'ala intan ku siiyey soo ma joogo, haa. soo biriba in kale kuma siin karo, haa. soo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ummadan iskuma eegaayo, haa. intan haddaba qaybna reerkaaga u reeb, qaybta kalena waxaad siisaa walaalahan soomana jaarkaaga. waxaad tidhi raashinkii yaraa baan qaaday, hilib yar iyo khudaar yar iyo wax yar. waxaad tidhi waan qayaaday, labaanu qaybiyey, intii waxaad tidhi waan la hadhay, intii kalena waxaad tidhi waxaan u geeyey jaarkaygii. waxaad tidhi jaarkaygii markaan u geeyey ayaan iska soo noqday, afurkii bay gaadho waan iska afuray bay tidhi. alxamdulillah habeenkii cishaayigaygii baan iska tukaday, noloshaydii alxamdulillah waa iska seexday. waxaad tidhi anigoo hurdo habeenkii ay saqdii dhexe tahay ayaa waxay tidhi cid baa ii timi, ma arkaayo bay tidhi mana garanayo. kabacdi waxay tidhi waxa laygu dhibayt soo kac, waa lay kaxeeyey. waa riya markaa. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dawaa cid uu soo diray. waxay tidhi waan socday cidaan la socdo markaa ma garanay bay tidhi, laakiin waa lay wadaa sidaan u soconaayo. waxay tidhi waxaan tegay dhul bannaan oo waxay tidhi dhir waaweyn oo aad u qurux badan bay tidhi, aad iyo aad u qurux badan, oo waxay tidhi seefka saa isugu haysa, yacni dhinaca isku wada haysa ay ka baxday. dhirtaasu bay tidhi wax caleeni kama muuqdaan, laakiin dhirta dhammaanteed korkeeda waxa saaran bay tidhi flower ama ubax kalarka aynu soosaliga nidhaa ama purple-ka aynu dhahna Englishna ama soosaliga la yidhaahdo ayaa dhirta waxay tidhi dhammaanteed dhakada ka wada saaran. waxa weheliye bay tidhi ubax yaroo kaloo aan badnaynoo cadcadaana, laakiin dhirta markaad muuqaal ahaan eegto soosaligaas ubax u badanyay ina yaroo cadaana ku jirta. dhirtu marka waxay tidhi waa dhir aad Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qiyaasi kara intay leeg tahay badida dhirtaas iyo sidii waxay tidhi isugu hayso, yacni dhinaca waa dhul bannaan bay tidhi. dhirtu waxay tidhi way iswada leeg tahay. waxay tidhi qodax male, qashin yaroo ku hoos daatay male, geed yaroo kaloo ka nooco ka hoos baxay male. waa dhirta Allah subxaanahu wa ta'ala intuu iswada leegaysiiyey
kalarkoodana caleenna aanu yeelin laakiin ubaxaas ama falaawarka kalarkaas soo saliga ah iyo intaa yare cadcadaanee dusha ka saaran ayuunbay dhirtaasu leedahay. dhirta hoosteedu bay tidhi waxa weeyaan camuudaas alla subxaana watacaala waxay tii wuxuu ka dhigay waa kalarka sonkorta oo kale bay tii sonkorta cad bay weliba iyadu ku tilmaamtay. sonkorta cad bay tidhi weeyaan ciidda dhirta hoostaala. waxay tii markaad saa weegta bay tii dhirtu xagga sarna way isaga wada eegta waa kalarkaas, seesahaanna way iswada leeg tahay, xagga hoosena bay tii ciidda aad sonkorta mooda waxay tii alla subxaanahu watacaala waxay tii saa yacni ugu simay. quruxda waxay tii dhulkaas iyo siday tahay waxaad ka jeesan maysid. wax bini aadan oo joogaana ma jiraan. waa dhirtaa siman ee korkaana ka quruxda badan iyo dhulkaa wada siman ee ciidiisu sonkortaasoo kala tahay. waxaad tii dhulkii baan imi waan daawaday, waa meel aad u qurux badan, waa meel cajiib leh. waxaad tii indhahaan la raacay kabacdi waxaad tii waaw yacni cid bay la hadashay. anu ma garanay bay tii cidday la hadlaysay cidna ma arko. waxaa laygu yidhi bay tidhi sadaqadii aad xalayta la baxday ee raashinka ahaa ee aad jaarkaaga siisay ayaa lagu magdhabaya ama lagu siinaya beddelkeedii lagu siinaya. waxay tii geedadka ka mida ayaa waxa jooga inay gu tahay 4 neef oo adhaya iyo 5 neef oo adhaya inay tii ma kala garanaayo. oo waxay tii nooca weegin aad yaa waxay tii aanad suuraynayn adhgaas quruxda. oo waxay tii adhi shilis oo qurux badan oo waxay tii dee barwaaqo yacni markay xooluhu joogaan oo nidhaahno yacni neefkaas wuu dhogor dhacsaday. ee waxay tii neefku intuu waxay tii maasha allah tabaaraka raxmaan iswada leegaada bay tii layidhahda bay tii neefku markuu naaxo dhogortaa ka yaraata moogtay markuu weydayana dhogortaa ku badan layidhahda bay tii wuu dhogor dhacsaday oo nadiifa adhigaasa waxay tii geedka hoos jooga. waxay tii maasaa laygu yidhi bay tii waa tan sadaqadaada beddelkeedii. sadaqadaad xalayta bixisay eed jaarkaaga sooman siisay tanaa laguugu beddelay. waxay tii waan farxay. kol waxay tii adhigii baan eegaa laysiiyey xoolihii. waxay tii xoolahan laftooda xoolo yaacyaacaya oo ordaya oo qaylinaya maaha. waa xoolo iska fadhiya bay tii geedka hoostooda oo iska jooga. waxay tii kol waxaan eegaa ubaxa sare iyo dhirta maasha allah tabaaraka raxmaan. kol waxay tii dhulka goglan camuudda dhulkaan eegaa sonkorta weeg. waxay tii waan yaba xadha bay tidhi tolow ma jannadii la sheegaya halkano. waan yaabaa. waxaan sidii ahaadaba waxay tii markii adhigii lay guddoonsiiyey ee waxay tii dhulkii quruxda badnaa maasha allah ishaydii dee ka bogatay ayaan dabeetana waxay tidhi kasoo laabtay meeshii kasoo noqday. adhigiina maan soo kaxaysanin barti baan kaga soo laabtay bay tidhi. adu calaa kulli xaal alxamdu lilaah rabbilcaalamiin. walaashu waxay tii waan soo toosay. waxaan la soo toosay bay tii farxad. waxaan la soo toosay bay tii yacni nashaad. waxaan la soo toosay bay tii qalbigayga iyo indhahayga iyo waxay tii anigoo dhan oo iigu sawirantay meeshii xalayta lay geeyey quruxdeeda. waxay tii waan isweydiiyaa talow meeshii maxay ahayd, talow adhigii maxay ahaayeen, talow dhirtii quruxda badan maxay ahayd, talow sonkorta ciiddii sonkorta weegeed maxay ahayd. xataa ciiddanaan kabahaaga raacayn, ciiddanaan meesheeda ka dhaqaaqayn, dhulkan quruxda badan muxuu ahaa. waxay tii waan isweydiiyey. alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin. maalintaa laga bilaaba bay tidhi waxaan hela bay tidhi yacnii intan awooda bay tii waan la qaybsadaa dadka walaalaha. intii horena waan la qaybsan jiray bay tii alxamdulilahi rabbilcaalamiin. xusuus baanay riyadaasu iigu reebtay bay tii aad iyo aad u cajiib leh. walaalahayow maasha allah tabaaraka raxmaan. haddaba inaga cibra inoogu sugan. allah subxaanahu watacaala addoontaa wuu tusay waynu aragnaa yacni inuu beddelkeediyo ka khayr badan walo meel ka khayr badan insha allahu tacaala ugu tegi doonto oo u joogta. maxaa haddaba inala gudboon? waxa inala gudboon wixii aynu helo ee allah subxaanahu watacaala ina siiyo ha yaraado ha badnaadee inaynu qofka walaalkaaya la qaybsanno. walaashaad jaarka ama walaalkaaga jaarka qofka isku magaalada degan tihiin, qofka isku xaafadda degan tihiin, qofka isu dhowdihiin, qofkaad is leedahay wuu baahan yahay haba yaraato waxaad bixinaysaa ha la xishoone la qaybso. insha allahu tacaala intaan sheeko taasoo kale biidnillahi tacaala inoo soo gudbinayo waxaan idinkaga tegayaa
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.